السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أي وحماي إن ما أنت أنا لقبتي قدوميه حسبك ووطني قبل كعوض العبد كريم مال أو إسلا دقيقة ديبا تلك وصلوا داديين iyadoo laga soo qabtay hotel race markaasi oo haddana aniga telefoon la igu wacay oo la yiri waxa laga rabaa maxay ahayd saldhiga ayaa laga doonayaa Islaali sidii baa markaa aan dhuumasho ku jira waxa la ii sheegay in saldhiga ay yaalo oo yaalo 10 qof ilaa 10 qof miiskood oo ay ku jiraan xildhibaano oo ku jiro oo nin kale oo Shucayb la yiraahdo ku jiro oo xisbiga wadani ayaa la ii sheegay arrintaasina waxay daba socotaa sideebaad u hadashaan sideebaad in xaqaa'iqa jira wadanka gobolka ee dawladdu kula dhaqanto aad uga hadashaan habeen hore waxaa shalay daraad waxaan ka hadlay soo dhaweyn la'aantii daahir rayaale kaahin madaxweynihii waqtiga dheer ee dimuqraadiyadda loo sameyn waayay ee dawladda kulmiye ka muquuratay waxa weeye gobolkan dhibaato weyn ayay dawladda kulmiye ku haysaa sababo badanna way ugu haysaa oo aan la qarin karin sida dawladda kulmiye waxa ajende u ah oo mutaraxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi ajende u ah inuu deegaanka ceel bardaale deegaamo kale oo ku yaal xeebta uu qaado beeshiisa Sacad Muuse taasi ayaa cad iyada oo xisbigii kulmiye ee waqti dheer ay dad badan oo gadabursi ku jireen xuquuqda awlaha gabilay iyo wajaali iyo laga reebay waxaan ognahay in Maxamed Maxamuud Faarax dheerta oo si khaldan ugu xiran yahay jeelka hoose muddo 10 cisho ah 18 cisho ku dhow isagoo ah xildhibaan oon xataanad laga qaadin ayaa toos suuqa looga qabtay oo la xiray wuxuuna ka hadlay arrin ka dhacday gobolka Gabilaa oo sheeganayo qaybo kamida degmada Boorama sida Garbahaadley oo kale ayuu ka hadlay sideed uga hadashaada leeyday iyadoo ogtihiin in baxayade beesha Maxamed Maxamuud Faarax dheerayste reer Faarax Nuur deegaanka wajaale ku lahaayeen oo ka qaatay beesha Jibriil Abokor isla markaana aan gudoomiye ku xigeenkii wajaale la siin waqtiga dheer ay ahaayeen Salaban waxaad sheegtay in hore loo xiray dheeraystay haddana in la xiray gudoomiyihii gobolka Awdal wadani yaa amarka xarigooga soo bixiyay amarka xariga waxa soo bixiya madaxtooyada laga soo bixiyaa wadanka ma gudoomiyaha maxkamadda sare waxba kama jiraan wuxuu ka amar qaataa wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi sida ku dhacday odayga weyn Cabdi Waraabe oo inan la xiray damiin ugu doonay maxkamadda sare afcad ayuu ku yiri gudoomiyaha maxkamadda sare Maxamuud Xaashi soo weydii waxa kale oo xariga fuliya taliyaha qaybta gobolka Awdal waa nin habar jecla ah xiriiraaliyaha gobolka Awdal waa nin Sacad Muuse ah halka gudoomiyaha gobolka Awdal ama barasaabkuna uu yahay nin habar yoolisa waxa marka ay la kaashadaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka oo ah inaan bahabar celiya oo maxad casaa oo madaxweyne ku xigeenka ilmaadeeriyiin iyo gudoomiye taliyaha jeelka hoose oo isaguna aan nin maxad casa ah oo maxasan yara la yiraahdo waa kudlad isku xiran halka maxay ahayd CID da waxa haysta ninka la yiraahdo Shankad oo ah habar cafan oo adeerkii rumiya oo haysto daahir qombaroosto hogaanka CID da ee qaranka marka waa kudlad isku xiran oo bartilmaameedsanaysa dad gaar ah marka taa macnaheedu waxa weeyaan madaxweyne ku xigeenku isagu amarka xariga mas'uuliyiintaasi shaqo kuma leh way
وعدها أفكار لو مريا أنا وحن جرن واي عبد الرحمن سيلي أو كهلا يودتكي قبل كسو جيدة سفرح الله دقميو ما بحي أمريكا وحوي أمريكا دتكا جاركا إسكبحيا تليها بولسكا كوو هاينايا وعكلو أو جراء أو إن لقى الله أي مدن تاي إن maxay ahayd waqtigii daayirayaale taliyaha ciidamada qaranku ahaa nuuctaani oo ah nin Sacad Musa oo deegaanka Ceel Bardaale beeshiisa reer xaleed ku doodayso oo dadka wadada ay ku laysay isla ninkii ayaa la soo celiyay oo saameyn badan ku leh xarigan socda waxa weeye isagii ayaa ku dhex jira markaa kulmiye dhalatayna waxaad ogtihiin in saylac lagaga murmayo doorashadii waxaad ogtihiin in goobood oo ku yaala lughaya la rabay in la goosto markaa waxa weeye qaab sirdoon ayaa loo shaqaynayaa laakiin labada dhibta wadi waa madaxweynaha reerkiisa iyo musharaxa madaxweynaha reerkiisa weeye raga bartilmaameedsanaya gobolka Awdal aad baad mahadsan tahay Sullivan